adiga hooyada maxay ku bartay horta hooyaday waxay bartay lama tirin karee marka hore aan horta hooyo maxay tahay luqadda Soomaaliga dadku waa ku hadlaa laakiin may yaqaaniin dhuuxa sifaha magaca loo bixiyo hooyo yo'du waa adaa leh sida hobyo gaalkacyo adaa leh mugta okay xagga kale hadii laga dooleeyo habar hadday gabadhu hal gaar dhasho waa habar macnaheedu waa hab bar tii bartay binu aadanka habka ay u dhaqmayaan faraxalo afdhaqo adayo aabadhe hooyodhe bahal xuux waa dab waa cir waa dhul bayna bartay horta waxayna bartay lama tirin karo laakiin markii la eego xagga dhaqanka anugu waxaan idhaahdaa siyaasiga Soomaaliyeed hadduu fahmi lahaa macnaha ay xambaarsan tahay heesta waxaraha ama heesta ariga waaweyn ama heesta caanaha lagu lulo ama heesta kabadda ama heesta badarka lagu tumo hees hawleed oo isu dhinac yaal hogaamiye xun iyo hogaamiye fiican anugu waxaan qabaa dhibo ma timaadeen ee hawshu dhammaan lahayd haddii siyaasiyiintu intaa fahmi lahaa hay maxaa ka maraga kaliil baa roob daay meel durugsan buu ka daay reerku caawu fiid kacay bulbul salaadka duhur maydh aqal lagama saaro markii hargonto ku ururo wiirada maqashu ay socon weydo maqashu waa dadka iyo naylaha iyo waxaraha carruurta yararka waxaraha iyo naylaha waa dhaqaaqi weyda geedaha isu qaybiyeen hooyadu markaasay ugu dhufan jirtay waa daalayey hanaloo degooy waa oonayey narooriyoy gaajoonayey geel noo liso eeg ilmihii waxaa lagu sheegay inaad daashay oo la degayo oo aad gaajootay oo geel lagu lisayo hooya xaggee la degaya berri geediyey bana baarahey biyo qaadashooy waxarow wax la sheeg qasax daatay la sheeg la sheeg qaroon qubatay la sheeg la sheeg xamur xayana la sheeg la sheeg wax la sheegyo wax la sheelibamayn how eeg marka siyaasiga Soomaaliyeed hadduu intuu fahmo bulshada asbuuciiba mar ugu soo cesho dagaal baa la gelayaa dagaalku taaniqiin maaha qori maaha waa dagaal hawleed waa dagaal horumar waa dagaal danguud waxaynu qorshaysanay 5 sano inaynu ka shaqayno dhulkeena beeraha wadooyinka jidadka haddii ilaahay ku garoomada dekadaha 500 u qaybiyo waxa ilaahay xooggiisa iska dhooban haye idinku kunkiinaanu waxaad ka shaqaynaysaan beerahan waxa beeraysaan timiriya sarreen anugu waxaan bixinayaa haddaan xukuumadda ahay cunada cuni lahaydeen 5 sano bariiska cuni lahaydeen anaa bixinaa hadhow 5 sano markay dhammaato beeruhu isku dhalaan oo sarreenku isku dhalo lacagta ka soo baxda 20%